lix waxay eedeysanay Cusmaan Xasan Cosoble oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad la akhriyo 71 iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida maalgelinta argagixisada oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedahaas todoba waxay eedeysanay Cabdalla Maxamed Axmed oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobka 246 faqradiisa koowaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 282 faqradiisa koowaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bari yeeshay eedahaas sideed waxay eedeysanay Cabdikaafi Xasan Maxamed oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida maalgelinta argagixisada oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedaha lagu soo eedeeyay sagaal waxay eedeysanay Jacfar Maxamed Axmed oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud waxayna ka bari yeeshay eedahaas toban waxay eedeysanay Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobka 241 faqradiisa koowaad la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo qodobka 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba waxayna ka bari yeeshay eedahaas lagu soo eedeeyay 11 waxay eedeysanay Maxamed Aadan Jimcaali Koofi oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 255 248 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 55aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida maalgelinta argagixisada iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bari yeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eedeeyay 12 waxay eedeysanay Muxudiin Xasan Juru Saabay oo maqnaa kuweyda dhammaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad faqradiisa koowaad labaad iyo saddexaad oo la akhriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada oo la sii akhriyo qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bari yeeshay eedahaas waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay'adaha ay ka tirsan yihiin eedeysanayaasha maxkamaddu dambiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha 5 2024 wabillahi tawfiiq